soo dhawaada SRC University College. halkan waxaan ku soo gudbinaynaa muuqaal kooban oo aynu kaga hadlin doono qaabka ugu habboon ee loo baaro carruurta 5 sano ka yar nafaqadooda. kuwan idin muuqda waxa weeye qalabka dhammaanba loo adeegsado marka la baarayo carruurta nafaqadooda. kani waa loox, waxa kale oo loo yaqaanaa height-board. waxaa loo adeegsadaa in lagu dhereriyo carruurta 5 sano ka yar. looxani waa 2 qaybood oo isku rakiban, waxaana isku haya boolkan idin muuqda. marka aynu doonayno inaynu isticmaalno, waxa aynu furaynaa boolkan. kadibna waynu iskareeynaa inagoo isku beegaynaa tirooyinka ku qoran looxa. kadibna waxaynu ku xidhaynaa arabidan si aan u kala furmin looxu inta aynu isticmaalayno. boolkana waxa aynu ku xidhaynaa xagga sare si aanu inooga lumin. haddaba marka aynu doonayno inaynu dhererino carruurta, looxan waxaa loo adeegsadaa 2 hab. mar waa la istaajiyaa, marna waa la jiifiyaa. waxaa loo istaajiyaa marka ilmaha aad dherinaysaa uu istaagi karo, waxaana loo jiifiyaa marka ilmaha aad dherinaysaa aanu istaagi karin. haddaba marka u horeysa ee aynu hawshan qabanayno, hooyada ilmaha yar siidata ama wadata waxaynu u sharaxaynaa dhammaanba hawsha aynu qabanayno si ay inoola fahanto waxa aynu u qabanayno. haddaba marka aynu dherinayno ilmaha istaagi karaya, waxaynu ilmaha dhex istaajinaynaa looxa inagoo cirbihiisa, dhabarkiisa iyo madaxiisaba ku dhijinaynaa looxa. waxaynu soo riixaynaa gacanta xagga sare ee looxa, kadibna waxaynu ku dhijinaynaa madaxa sare ee ilmaha si aynu u helno cabirka saxda ah ee ilmaha. kadibna waynu qoraynaa dhererka ilmaha si aynanu ilaawin. marka aynu rabno inaynu cabirno ilmo aan istaagi karin, waxaynu jiifinaynaa looxa, kadibna waxaynu dul jiifinaynaa ilmaha yar ee aynu cabirayno si aynu u ogaano dhererka saxda ah ee ilmaha. kani waa miisaan. miisaankan waxaa lagu miisaamaa carruurta 5 sano ka yar. halkan waa badhinka laga shido. halkanna waa badhanka laga siiroo gareeyo. badhankan kale idiin muuqdaana waa badhanka miisaanka qofka laga jaro. marka aynu rabno inaynu wax ku miisaano, waxaynu dhigaynaa meel siman. kadib ilmaha yar marka aynu rabno inaynu miisaano, 2 hab ayaa loo miisaamaa. marka aanu ilmuhu istaagi karin, hooyadii ayaa la miisaamaa marka hore. kadibna hooyadii oo miisaanka saaran ayaa miisaankii la taabtaa badhanka ka jarista. kadibna miisaankii hooyadu wuu isa siiroo gareynaya. markuu miisaankii hooyadu isa siiroo gareeyo, waxaynu u dhiibaynaa ilmihii yaraa. kadibna waxaynu helaynaa miisaanka ilmaha yar ee aynu hooyada u dhiibnay. haddii uu ilmuhu istaagi karayo, miisaanka ayaad u shidi. markaad miisaanka shiddo, ilmaha ayaad dul istaajin. kadibna waxa uu kuu sheegayaa miisaanka ilmaha istaagi karaya. kadibna waad qoranaysaa. qalabkan idin muuqdaa waa muwaag. muwaagga waxaa loo adeegsadaa carruurta 6 bilood ka weyn 5 sano ka yar. muwaaggu wuxuu leeyahay midabo kala duwan: midab casaana, midab huruuda iyo midab cagaara. muwaaggu wuxuu leeyahay tirooyinka qaar waxay ku qoran yihiin midabka casaanka, tirooyinka qaarna waxay ku qoran yihiin midabka huruuda, tirooyinka qaarna waxay ku qoran yihiin midabka cagaarka ah. haddaba si guud, tirooyinka casaanka ku yaala haddii ilmaha muwaaggiisu markaynu xidhno uu ku dhaco, ilmahaasi waxaa haysaa nafaqadaro ba'an. haddii muwaagga marka aynu xidhno ilmaha yar uu ku dhaco tirooyinka ku yaala huruudana, ilmaha nafaqadarada haysaa waa mid dhexdhexaad. haddii ilmaha muwaaggiisa markaynu xidhno uu ku dhaco tirooyinka ku yaala akhtarkana, ilmaha wax nafaqadaro ay ma hayso. markaynu doonayno inaynu xidhno, waxaynu samaynaynaa calculation. gacanta suxulka ilaa halka ugu sarreysa ee cududa, halka ilaa halkaas aynu dhererinaynaa. markaynu halka ilaa halka dhererino, waxaynu la soo baxaynaa tirada kala badha. kadib tirada kala badha halka ay ku dhacdo ayaynu calaamadinaynaa inagoo u adeegsanaynaa qalin. bartaa qalinka aynu ku qorno ayaynu muwaaggii ilmaha yar ku xidhaynaa. kadibna halka daloosha ayaynu ka fiirinaynaa tirooyinka. kadibna daaqada bannaan ayaynu ka eegaynaa tirada ilmaha yar muwaaggiisu ku dhaco, inagoo eegaynaa nambarka ay fallaadhu ku dhacdo. nambarka ay fallaadhu ku dhacdaana wuxuu noqonayaa muwaagga ilmaha yar.
kani waa SARS-CoV. SARS-CoV waa table lagu soo saaro carruurta yaryar nafaqadooda adigoo adeegsanaya dhererka ilmaha iyo miisaanka ilmaha. haddaba SARS-CoV waa laba qaybood. qayb waxaa loogu talagalay in lagu ogaado inamada nafaqadooda, qaybna waxaa loogu talagalay in lagu ogaado hablaha nafaqadooda adigoo adeegsanaya dhererkii iyo miisaankii ilmaha yar. haddaba marka aynu doonayno inaynu la soo baxno SARS-CoV ilmaha yar, marka koowaad waxaad tegaysaa ilmaha dhererkiisii. dhererka ilmaha markaad hesho laynkaa sida tooska ugu beegan ayaad ka baaraysaa miisaankii ilmaha ee. haddii miisaanka ilmuhu uu kugu dhaco qaybta xasaanka ilmahaas nafaqadaro ba'an ayaa haysa. haddii miisaanka ilmuhu uu kugu dhaco qaybta huruudda ilmaha nafaqadaro dhexdhexaada ayaa haysa. haddii ilmaha miisaankiisa uu kugu dhaco qaybta cagaarkaana ilmaha wax nafaqadaro ah oo haysa ma jirto.